Hello, assalamu alaikum, khayri barwaqan dirjani oo fidxi cabsiya. I hope you guys are doing well. Meel walba joogtaan inaad wacantihiin oo wanaagsan tihiin oo nabad qabtaan ayaan Ilaahay idinka baryaa. Anagu waa wanaagsannahay. Xaaladii adduunku wallahi waqti adag baa lagu jiraa. Allah khaatimada khayr hayna ugu khatimo oo hayna badbaadiyo, xaq hayna wada tuso Ilaahay idinkii. Waqtigan aynu ku jirnona kuwii ka faa'iideysta maaragtay fahma Allah ina ka yeelo Ilaahay idinkii. So dhawow fadlan intaynaan ilaawin share, comment, like, follow and subscribe. All right, waa tahay. Dhowr qof baa waxay soo direen video inanta England la yiraahdo, England I think, London, England I think. iyo bushaaro video ah oo ay kaga hadlayaan inan ninkii ay la socon jirtay blackmail ku sameeyay oo ku yiri mala sawiro iska yar feeling aho the khaladaadka yaryar ee dhalinyaradu marka la yaryahay la iska galo dadku dhamay ay u badan yihiin inay sameeyaan dad badani sawir mala xogaa jirkeedu muuqdo oo hore oo ay iska qaadeen markii ay wada socdeen ama ay iska qaadeen markii wada socdeen ayuu la soo hadlay markay guursato ku yiri sawirkii baan soo bandhigaya hadaan biil joogta ay qorino 1,000 pound bishii seenin dabadeetna inantii muddo 4 sanadood ah ayaa ninkii waxay siinaysaa 1,000 pound oo xataa markay uurka leedahay hadii maartay shaqadu ku yara adkaato ama dhibaatooyin la soo dirsaan ama xanuuno la soo dirsaan oo shaqadii maartay ay lacagtii wada keeni weydo ama wada heli weydo uu marba ugu hanjabaa hadda soo dhigaya hadda soo deeyma maxay ka galay aniga lacagtii waynaad hadda keentaa intaas oo dhan inantu ay waxa u sameynaysaa because waxay diidaysay guurkeedu inuu ka burburo ninkeedu arinta ogaado waana wax dhici kara runtii oo maaragtay in de qof arintii oo runtii madaxa aad culays iga dhigtay culays madax iga dhigtay marka haddaan fikirkayga ka dhiibto arintan horta runtii waa wax dhici kara oo maaragtay waa wax ka suurtooba dadka hadeer jooga rag iyo dumarba dumarkuna inay maaragtay waxyaabahaas kala sameeyaan oo laga caqli badiyo la sabto la yiraahdo hani ma xabiibi waan ku jecelahay balkeen sawir yar oo sidana maxaad xidhan tahay soo dirmiraad yara qaawan tahay halka meesha soo yara tus maaragtay daaha ka yara qaad ka yara fayd size soo yara dheh ayaamahana aad baynu maqalay una aragnay inay waxaasi dhacaan waana wax dhici jiray oo laakiin saddex deerto aad muddo inay sii badanayaan waayo immediate gratification wax la yiraahdo markii waxaan doonayaa inaan kulaylka hayo iyo waxaan doonayaa markiiba helo sidaynu ognahay social media-hina wuxuu inoo fududeeyay iyo waqtigan lagu jiraa qofku wax kasto uu doonayo wax kasto doonayo inuu arko iyo wuxuu helaba inuu markiiba hanti karo heli karo oo de qofkii awal labadii qof ee wada socday kala fogaaye marmar internet ba may jirin ama waqtiyadii hore markii dambena qofku de siyaabo qofku waxa uu doonayo markiiba ku helayaa way raadkay imika sax weeyaan de ima jecel dooni maysid hadaan sawirka iyo waxaan ka codsado aan siinaynin qofkii marka caqliga yar ama miskiinka iska ahaa miskiinada aan way arag ahayn waa laga caqli badinaya aniga si arintani taa kaliya way igala weyntayo marka waxaan eegayaa siyaabaha sheekadan oo kale ka dhigaya suurtagal in inantan lagu sameeyo sidaa oo advantage lagaga qaato waxa suurta gelin karaya waa iyada waa ka weyn yihiin waxa suurta gelin karaya waxa weeyaan bulshadeeni ayaa waxa inoo hawl yar shayga beenta la yiraahdo ayaa aad iyo aad inoogu hawl yar ummad badan baan la soo dhaqmay dad fara badan baan la soo dhaqmay sida ay beentu inoogu fududahay umalayn maayna arka cid ay ugu fududahay waxaad moodaa dadkeenu inaanay ceeb u haysan beentu waa shay universally duniyan xag diineed iyo xag bini'aadanimoba shay aad iyo aad u foolxun bini'aadanka adduunka joogaa bulsho kasta oo adduunka ku dhaqani way ka siman yihiin nacaladka beenta
إننا ضد أهل الدين ودين النبي محمد صلى الله عليه وسلم هايستا يا وإلهي قرنيا عينو اسكت المعنى هسه يا شبانتو عادي بين وفضل هاي عادي نوفضل ninkii baa been sheegaya ilmihii yaraa baa been sheegaya qofkii weynaaya kala been sheegaya dumarkii baa been sheegaya waa society beenaalayaal u badan dadkeenu I'm sorry but it's true waxba ina lama ahaba la iskuma cambaareeyo la iskuma caayo la iskuma dhaleelo waa shay iska caadiya beentu dhaqankeena ninkii gabadhii been buu ku soo xiragelinayaa hadduu doono isagoo soo guursaday boonay walgii ma soo guursan hadduu doono ubadkiisu soo qarnaya wuxuu bartay iyo wuxuu haysto iyo wuxuu soo qabtay intaba hadduu doono been buu ka sheegaya dadku la soo sheekaystay buu dafiraya hadduu doono qabiilkiisu been ka sheegaya inagoo wada og boqolaal mahmahood baynu ka sheegnay beenaale marqaatigiisu fogeeya beentu لوكالي اللي هو لوك تاسنا مركل قبطوي دعلا بنتوا تشيز بنتوا شيء عادي فرح قفتي دو مرحي قبلني يدنوا بينواس waxay iska dhigaysaa inaanay weligeed nin la soo sheekaysan la soo taaban maxaa jabad xalay dhalay malaa'ig ay iska dhigaysaa qaar baan aragnay xitaa soo guursaday iyagoo been ka sheegay guurkoodii oo ka yaraysan ragga beenta ku soo xiragelida maxaa iga galay meherku markuu dhaco wuu jecel yahay wuu iska kay wuu qaadanaya xulbe wajigan aynu sidanaa adaka qalbigan aynu sidanaa maxariid baa maxaa inaga siya maxayna ka siya what's wrong with us gabadhaasi haddii ay ninkeeda markiiba intay taw tiraahdo ay runta farta ka saarto hadday ninkeeda markiiba intay la fadhiisto ku tiraahdo hani nin aan la sheekaysan jiray ayaa igu leh sawiraan kaa hayaa maba xusuusto sawiradan laakiinse waa suurtagal inuu iga hayo dee sawiro yarar feeling ahoo maaragtay jidhkayga qaar muujinaya hadday xusuustana tiraahdo dee anoo halkaa fadhiya ama saa u fadhiya ama saa u eeg buu iga hayaa haddaanay xusuusanna dee qofay muddo isla soo socdeen ay yihiino ay sawiro dhowr jeer kala duwan iska qaadeen ama ay u dirteen ay tiraahdo ma garanaya sawirku ka hadlay laakiin waa suurtagal waa kan teleefonkiisii igala hadal dee adaa ninkaygiiya u babacdhig ii dagaalan ii difaac muxuu samayn lahaa ninkaas hadduu nin wanaagsan yahay oo xaaskiisa ku kalsoon oo gabadhiisa jecel guurkiisa doonaya inuu xejisto u dagaalamaya teleefon intuu u diro ninka ayuu lahaa war waad adab daran tahay saqajaan duliya baa tahay dee annagayna dooratay hadday adiga nasiibkii idin kala kaxeeyay ama ay kaa tagtay dulli baa tahay annagaa ku jecel waxay tahay bee waad adab daran tahay gadda hel arfiya inaan isku baaba-in gadhba gadh baa la tusaa ileene yaa ambaynama waan la dhashay amshuurad ba habla inaad la dhalatay wuxuu doonaba ha ku yidhaahdo laakiin markuu ogaado muxuu samayn lahaa bay idinla tahay ama dee wuxuu noqon lahaa nin yidhaahda yaa anigu sidaan la joogaa naag niman kale rag kale haystaan sawiro qaaqaawan ka haystaan naag rag kale sawiro qaaqaawan ka haystaan anigu sidaan u qabaa sidee la igu caaya aniga weak ass ayuu noqon lahaa dulli ah hadduu saa sameeyana ilaahay baa kasoo furtay intay dhaban yar tahay ee weli ay curdinka tahay ayaa ilaahay kasoo furan lahaa oo wuxuu yahay ay arki lahayd oo nolosheeda dhinac ka raacan lahayd haddii kalena dee ninkaa wanaagsan buu noqon lahaa wuu dagaalami lahaa waxayse u badan tahay in ay baqayso waayo waxa suurtagala inay xalay dhalays ka dhigtay oo ay
ugu sheekaysan inaanay weligeed nin kale baran la sheekaysan keli ku noqon meel la tegin la fadhiisan la taaban la dhunkan beentu dawata lu kaliya leedahay lugtaa kaliyana marka la qabto way dhacdaa beentu waa agli foolxumo weeyaan waa wax foolxun aada iyo aada foolxun beentu xorriyadday dadka ka qaadaa qofnimada bini aadanka ayay daciifisaa caqligay waxyeeshaa daciif bay ka dhigtaa qofka bini aadanka beenaaluhu waa eygaa ka wanaagsan eyda maxaa loo maagiya eydu wax wanaagsan waa doofaar beenaaluhu qofka beenaalaha ahi miid doofaarka sidiisaa miid saa qoyaan baa saa uga dacaya white lies yaryar waa iska jiraan bini aadanku adoo xataa meel tegi baad masamaan tegin haddaan doono qof baad diidaysaa inaad ku tiraahdo waan joog little things bini aadanka oo dhan waxyaaba yar waxaan ka hadlayaa beenaha waaweyn qofna malaa'ig maaha oo perfect maaha everyday little lies oo yaryar oo unnecessary marmarka qaarkood way jiraan laakiin aan wax weynsi ahayn oo cidna wax u geysanayn sida telephone lagu soo diray oo aad iska dhigtid inaan joogin oo kale it's ugly ma qurux badnaa in yar bay dhaawac yar bay marba in yar bay kaa xayuubinaysaa sharaftaada iyo milgada aad dhowranayso haddaad leedahay dee laakiin that's not what we're talking about maaha waxa aynu ka hadlaynaa waxa qofka bini aadankahay markuu qof daacada yahay oo runta ku dhinta oon cidna iska dhisin milgo iyo sharaf buu huwan yahay it's so important qofku inuu ethics wax la yidhaahdo lahaado xeer meel uu ka soo noqdo wax celiya xataa haddaanad ilaahay ka xishoonayn naftaada aad kaga xishootid nin baa beri lagu yidhi I don't know qofku ahaaye maad iska tiraahdid ama iska samaysid sidaasaa la yidhi cidna ma ogaateene markaasuu yidhi laakiin the problem is I know waa run laakiin dhibaatada wax weeye anigaa og inaan ogahay I know that I know qalbigayga og anaa is og imagine adigu inaad really aad leedahay I don't want to let down aniga naftayda inaan hoos u dhigo halkaasaa naftayda ugu talagalay halkaa inay saaraato halkan inaan keeno ma rabo anaa is og imagine inaanad ka fikirin waxaasaa lagugu soo qaban lagugu soo cadayn lagugu ka waran like you're free cidina kuma laha information unnecessary cidsi cidina kuma laha macluumaad iyo maaragtay waxyaabo aan important ahayn dadka la doono no that's not what we're talking about maaha taa waxaynu ka hadlaynaa waxa weeyaan qofka bini aadanka ahi inuu is yaqaano inuu is rumaysto inuu isu hanweynaado in uu xeer aanu ka gudbi karin samaysto in cid kale hadday been taqaano iyo cid kale hadday xun tahay iyo aanad la mid noqon adigu waxyaabaha ku wasakhaynaya qofnimadaada dhaawacaya dhibaatada u geenaya damiirkaaga bini aadanimo waxyeelayana inaad iska ilaaliso there's nothing more wax ka qurux badan qofku hadduu xataa uu 100 iimood leeyahay marka uu daacad yahay runsheeg yahay attractive uu noqdaa uu qurux badnaadaa dadka wax garanaya dee wuu qurux badnaadaa dadka iyaguba milgada iyo sharafta leh people of integrity and ethics waxa weeyaan haddii inaan balwad yahay xataa uu maaragtay yidhaahdo anuu balwad baan leeyahay waa laygu masiibeeyey laakiin waan jeclahay inaan iska daayo adigaanse ku jecelaho ku rabaa wax walba igu qaadato waan samaynaya inaan iska daayo haddaan adiga ku helo ood igu tacabtid aynu isweheshano oo isla riixno
waan joojin karayaa. Isn't that beautiful? Soo ma qurux badna hadduu yidhaahdo waxba ma haysto, waxna maan qabsan, waqti badan baa iga lumay, laakiin inaan isbedelaan doonaya, adaan ku jecelahay. wax walba waynu iska kaashan karnaa. maxay kula tahay? ama diid ama yeel qofkaas waa xor. wax lagu xuxiyo iyo wax lagaga daba yimaado iyo wax lagu khasaysiiyo hadhow iyo nanadaad waxa ma wato, package-kaas oo dhan ma wato qofkaas. qofka sidiisoo kale caqliga iyo sharafta lehina wuu garanayaa, wuu ixtiraamayaa, wuu sharfayaa qofka. most likelyna siday u badan tahayna wuu ku raacayaa, wuu ku jeclaanayaa, wuu ku guursanayaa. gabadhu hadday tiraahdo waryaa miyaad doonaysaa inaad anigu rag badan baan la soo sheekaysta, dee horaa loo yidhi gabadh kun baa la hadla koobaana ka guursadee, dee imikaba ogow anigu malaa'ig meehi, adigana layma kaa samayn. maybe in lay kaa sameeyey, laakiin dee aan ku khasbanaa inaan qashin badan soo maro, buuro badan kasoo baxo, dhibaatooyin badan iyo qardajeex badan soo sameeyo si aan usoo gaadho barwaaqada iyo bashbashka, si aan kuu helo adiga. de sidaa ogow anigu qof taariikh labaan hayo soo jirtee, haddaad raalli sidaa ku tahay welcome, laakiin anigu xalay dhalay ma ihi, malaa'igna ma ihi, qof bini aadan ah oo bashara baan ah, mistakes badan soo sameeyey, qof khalado badan soo sameeyey baan ahay oo bini aadan ah, laakiin wax badan kasoo bartay, iminkana diyaar u ah inuu guulo badan gaadho, waxaasoo dhan maaragtay ka koro, ka kobco, ka weynaado. sidaa ma igu rabtaa? That's beautiful. maxaa beenta inagu itixaamay? why? beentu waa wax foolxun. been dad isku soo galay guul ma hantiyaan, mana gaadhaan. haddaad doonaysaan inaad guulaysataan, iska daaya khiyaamada iyo beenta. walaalayaalow iska daaya khiyaamada iyo beenta. ilaahay intaad ka baqdaan oo naftiinana sharaftaan, iska daaya beenta. haddii xataa aadba soo khaldantay oo maaragtay mistakes aad soo samaysay, situationka xaaladaasoo kale maalintay kusoo wajahay, xaaskaaga ha kala gaban. dhibaatooyinka noocaasa haddaad gabadh tahay, haddaad haweenay tahay oo dhibaatooyin noocaasi kusoo wajahaan, ninkaaga runta u sheeg. intaad naxdin maalin walba joogto ah ku jiri lahayd, wadnaha farta ku hayn lahayd, inaad mar kaliya naxdintu kaa dhamaataa la qaatay, mar kaliya kaa dhamaato. isdhaafi runta u babac dhig. wixii ka dhacayaabaha ka dhaceene runta u babac dhig. maxay ahayd? waxba dhowrsan mayna low dhagax soo daaday. I don't like that. ma jecli, laakiin iska badheedh naxdintaa iyo runtaasiba, and these two shall pass. tanna way gudbi doontaa, waad ka gudbi doontaa. intaad maalin walba wadnaha farta ku hayn lahayd. I can't imagine having children this way. marba intaad uur yeelato, caruur ku dhashid, oo aad shaqaynaysid, oo aad blackmailkaa is leedahay kab wadnaha maalin walba farta ku haysid. cudur iyo xanuun iyo dhibaato oo dhan ayaad isu soo jiidaysaa. ninkaagii xalaasha ku ahana been baad u sheegaysaa. blackmailku waa xaaraan, waa interest-koo kale. kulleyba worse baan u malaynaya, ka daran, ka xun. xaaraan baad dhaaminaysaa, kubcinaysaa, korinaysaa. What's the matter with you? Don't do that. waxaa samaynina. kani adayg baa laydinka baahan yahay. haddaad mahmaahdii maxay ahayd? ama afeef hore lahow ama adkaysan dambe lahow, ama afeef hore lahow ama adkaysan dambe lahow. haddiiba khaladaadku soo dhacay, adkaysan dambe lahow. dee babac dhig, badheedh, runta sheeg.
beentii been kale ha kusii wadin beenta iska daaya dadkiinan isguursanayaa runta isu sheega isu badheedha adigoo nadiifa oo qashinkii hore iyo baakajkii hore iyo wixii hore quba idinkoo ka yimi qashinkii iyo qurunkii hore nolol cusub oo qurux badan isla bilaaba oo run ku salaysan si aad u tanaadaan ood u tarantaan ood u qurux badnaataan oo ilaahayna blessings sharaf iyo hibo iyo qurux idinku manaysto baraare badan iyo barako badan idin siyaad u heshaan iska daaya beenta rag iyo dumarba beenta iska daaya share comment like follow and subscribe